dadka dhan waa sida hooska, waa ay kaa wada tegayaan marka la gaaro waqtiyada adag ama waqtiyada mugdiga ah. qof aan kula qaybsanaynin murugadaada, ha u burburin farxadaada. ka taxadar dadka aad aaminayso, wax walbana aad u sheeganayso. qof walba oo ku dhoola cadeeya ma ahan saaxiibkaaga dhabta ah. marmarka qaar way fiican tahay inaad iska aamusnaato, keliyana aad iska dhoola cadayso. dadka uga yaabso aamusnaantaada, waxtarkaagana lama filaan uga dhig. sharaftaada ha ku lumin hal khalad oo kaa dhacay, hana ka dhigin ujeedada keliya aad dunida aad ka leedahay. haddii aad dareento inuu qof iska kaa fogeynayo, qofkaas dib dambe ha u khasbin, danahaaga ka raaco. waxaa doqonnimo kuugu filan adigoo isku mashquulisid waqtigaagana aad ku ridid addoon adiga kula mid ah. marna ha u ogolaan inuu qof ku liido ama ku dareensiiyo inaad tahay qof aan waxba qabsan karin. caarsiga ugu fiican waa inaa guul weyn gaadho. riix naftaada, sababtoo ah ma jiro qof kuu riixayo. waxaad guul daraysataa oo keliya markaad joojiso isku dayga. socdaalka kumanaanka mayl ahi waxa uu ku bilowdaa